barankii baan samaynayaa, bulshadan soo hor istaagayaa, akhlaaqdan bi'inayaa, beeso ayaana ku doonayaa, howl muuqatoon la qabanin iyo hal abuurkii oo dhumay, hamigii dhallinyarada oo hoos u soo dhacay, hore u hayaankii iyo hanaqaadkii oo laga joogsaday, akhlaaqdii oo ooyeysa in lagu cayaarayna sheegaysa, barankigii naftiisa oo bulshadii ka soo dacwooday, akhlaaqdii oo sii baaba'aysa, caannimo ceeb lagu raadinayo, bele faafaysa iyo akhlaaqdiioo ba'aysa, qoomku dayashadood aan qayr ku jirin, dhammaan beladaas iyo baaskaas waxaa laga helaa waxa loogu magacdaray barankiyada ay maalmahan ku waasheen Soomaalidu. Waxay leeyihiin baranki, waan kaftamaynaa, waan qoslaynaa, waan iska baashaalaynaa, laakiin waxaa ku hoos jira waxyaabo fara badan oo dhibaato keenaya, waxyaabo badan oo akhlaaqda wax u dhimaya, waxyaabo badan oo bulshada hoos u dhigaya. Wiil dhalinyaro oo muslima ayaa waxa uu imaanaya walaalkiis kale oo muslima, kadib markaasi ayuu leeyahay hooyadaa way dhimatay. markii wiilkii naxo oo wadnihii boodboodo oo idid ka yimaado oo carar maago hooyadii raadi maago teleefon diro oo kadib ayaa waxaa leeyahay barankii ayaan kugu samaynayay, waan kaftamayay saaxiib, iska raalli ahaaw. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay arrinta noocaasi ma bannaan tahay? sidoo kale nebigu sallallahu calayhi wasallam muxuu ka yidhi in walaalka muslima aad cabsi gelisaa? nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ina amray in qofka walaalka muslimka ah la salaamo markii jidka lagu arko, yacni laga farxiyo oo nabadgelyo lagu salaamo. xadiid baa wuxuu ahaa markiina nebiga sallallahu calayhi wasallam weydiiyey islaamka maxaa u khayr badan, markaasuu yidhi dadka ayaad cuntada quudinaysaa, salaantana waad ku akhrinaysaa ciddaad taqaano iyo ciddaadan aqoonba. qofkaad taqaana bis salaami maysid, qofkaadan aqoon xitaa muslimka walaalka ah waad salaamaysaa. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu reebay in qofka muslimka la cabsi geliyo xitaa haddii la kaftamayo. xadiid ayaa waxaa ku jiray in saxaabadu ay la socdeen nebiga sallallahu calayhi wasallam. mid ka mida saxaabadii ayaa hurday, xarig ayuu watay, saxaabadii qaar ka mida ayaa xariggii ka qaateen. markii uu soo kacay xariggiibuu waayey, wuu naxay. nebigu sallallahu calayhi wasallam markaa wuxuu yidhi uma bannaana qof muslima in uu muslim kale cabsi geliyo. maxaad u cabsi gelinaysaa? maxaad uga nixinaysaa? maxaad ugu sheegaysaa waxaan laga yaabo noloshiisa inay saamayn ku reebaan? soo ma ogid inay sababi karto hal mar oo uu naxo inuu dhib weyn soo gaaro caafimaadkiisa? haddaba barankiyada maalmahan la wado waa lagu xeel dheeraaday. waxaa jira kaftan iska caadiya oo fudud oo bannaan, kaftankaasi oo aan diinta waxba u dhibaynin, akhlaaq ahaanna aan ka soo horjeedin. hadda ka hor waxaa dhacday saxaabada mid ka mid ah inuu la kaftamay saxaabi kale ayuu la kaftamayey. niman uu u tago wuxuu yidhi waxaan leeyahay oo aan haystaa addoon, waxaan rabaa inaad iga iibsataan. kadib waxay dhaheen waa diyaar. wuxuu yidhi ogaada laakiin ninkaasi hal ceeb ayuu leeyahay, hal dhibaato ayuu qabaa. kadib waxay dhaheen waa maxay dhibaataduu qabo? wuxuu yidhi wuxuu ku celceliyaa anaa xurun, aniga xor baanahay. waa addoon waalan, sidaasuu ku celceliyaa, laakiin sidiisa kalama xuma. ogaada markaad gadanaysaan. kadib nimankii lacagtii ayuu ka qaatay, saxaabigii loo sheegay ayuu u tageen. saxaabigaana addoon maahana ninkan, isaga ayuu ku dhibayaa. markaas ayuu u tageen, soo bax bay dhaheen, waan ku soo iibsanay, addoonkeenaa tahay, lacagtaadina waa bixinay. markaa buu yidhi sideed ii iibsanaysaan? waxaan ahay qof xora. war anigu waxaan ahay xor. markaa bay dhaheen hore noogula sheegay inaad tahay nin yacni ku waalan ereygaas anaa xor. markii dhacdadaa dhacday nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa arrintii gaartay. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuu qoslay, yacni ma ceebaynin saxaabiga arrintaas sameeyey, waa ogyahay inuu la kaftamayo. marka taa waxay iska ahayd kaftan iska fudud oo ma ahayn kanexin weyn. saxaabiga kale waa uu la kaftamay, oo kaftanka bannaan ee caadiga ah in wax lagu kaftamo wax dhib la maaha. laakiin barankiyadu kaftan ma yihiin? maya, barankiyadu kaftan waa ay ka duwan yihiin oo waa lagu xeel dheeraaday, waana zaa'id. xitaa waxaa jira kuwa aan maalmahan arkayay oo laysla dhex marayay, akhlaaq la'aanta ka muuqatay iyo ceebta iyo fadeexadda halkaa ka dhacaysay ma ahayn wax loo dulqaadan karo, ama wax indha eegi karaan, ama wax uu daawan karo qof muslima oo akhlaaq iyo sharaf u saaxiiba. haddaba barankiyada qaar ee socda waxa ay dilayaan akhlaaqda, waxa ay ka soo horjeedaan dhaqankii fiicnaa ee muslimnimada. markii hore waxaan ka yaabaneen wax la yidhaahdo challenge oo la samaynayo, oo aan la yaabayay challenge aan mar dhexe arkay oo ay samaynayaan dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho. subxaan allah, waxa ay samaynayaan darteed ilaahay baa dulqaadku ka batay mooye dhulkaa la go'i lahaa. barankiga waa wax markii hore laga keenay reer galbeed iyo balaayada meelahaas ay ku sameeyaan. xitaa barankiyada waxaa u dhintay dad qaar oo laga nexiyey. haddaba barankiyadu waxa ay noqonayaan wax mamnuuca markay ka soo horjeestaan diinta islaamka, markay noqdaan wax akhlaaqda iyo edabta iyo usluubka wanaagsan dilaya. sidoo kale qodob muhiima ayaa jira oo ah barankigu inuu dilayo hal abuurkaaga. sababtoo haddaad maantana halkan soo fadhiso ood qof ku falaadaysod ku dheedheelayso, wax hal abuura oo aad soo kordhaysa ma jiraan.
كفائديسة أد كفائديسة وقتك قالقانا مجرو وح مهمة أو دحل قلقة أو أد بلشدة ذي أغتك تومانتا أو يكو انتفاعانا مجرو بلك وقار أخلاق ضرية أسلوب حمان أي لا إمادين أمد هرتوذا كاميرada hortooda ayay la imaanayaan waxyaabo akhlaaq darro ah inta hagaajin lahayd akhlaaqdii dadka muslimiinta ah ayaad ku cayaaraysaa soo ma ogid markaad kaamira soo hor fariisanayso muuqaalna u soo gudbinayso ummadaas ku daawanaysa in ay kugu daysanayaan ummadaasi qaar ka mid ah haddaba waxaad doonaysaa inay xumaato kaaga daysadaan oo hadhowday aakhiro miisaankaaga camalkaaga wanaagsan uu daciifo hoosna u dhaco ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ay kaaga hor dacwoodaan oo ku dhahaan hebel ayaa sabab u ahaa inaan dhunno ma doonaysid miyaa maalinta qof uu raadinayo هل أجر حتى إنه هلو كبوح صد درجة إن أدوح وناكسن وإلهي لهرتي كرتاد بالشدة أسوق بيسو مثل واحد أصو فريسانة يساسي أدل عقر أهشو أخلاق ذن أبا بيسو سيدا أي سميان بدل يربضن أو مسلمين أو يوتيوبر رأى والله يابيسو وحا إيكو هالليان انت وسند كودو لأجي هاي انت لأجي هنا وين كقبان يوحا إيكو هذا قيان وأدمو دول بعرورو إزدقاشو إسعينيس ومانترن إزدقاليسا أم إسلاينيسا بل انت قار مركي لدردار ميان بلينكالي وحمال مهان كل دردار مان haddaad doonayso inaad caan noqoto negatifkaagu habato noqo qof aan lagu aqoon wax wanaaga noqo qof mar walba u soo taagan inuu bulshada la hor yimaado wax aanay garanayn kana soo horjeeda dhaqankoodii wacnaa iyo dhiganahoodii sooyaalka ahaa sidaa daraaddeed qof walba wuxuu doonayaa inuu bulshada caan ka dhex noqdo soomaalideenna qaar ka mid ah soomaalidoo dhan maahane waxaad moodaa inay noqdeen dameer dhaan raacday marbay barbar u daateen oo waxaa ku waasheen marbay ku waasheen xilligii aad yareeday dhalatay ilaa sanadka hadda la joogo sawiradaadii soo daadi marbaa lagu waashay before and after marba waxbaa la keenayaa marba waxbaa lagu daadanayaa haddaba dadka qaar si ay u caanbaxaan waxay la hor imaanayaan bulshada wax aan lagu aqoon jirin akhlaaq darro iyo isluub xumo aan ummadda lagu aqoon malaha waxay ku dhaqmayaan qaacidadii la oran jiray haddaad doonayso inaad caan noqoto samee wax bulshada ka soo horjeeda ama khaalif tucraf dadka ka soo horjeeso oo khilaaf ha lagu barto oo caan noqo oo tusaale waxay dhahaan haddaad doonayso inaad caan ka noqoto meel maqaayadda inta tagtid waxaad kabalyariga ku tiraahdaa ii keen koob kafee ah kadibna iigu soo dar cusbo maalin kastood imaato kabalyarigu wuxuu ku dhihi doonaa waa wiilkii dalbaday kafeega iyo cusbada oo sidaasi ayaad caan ku noqotay laakiin taa dhib ma lahoo caannimada hadda la raadiyaahi waa ay ka duwan tahay middaasi waa caannimo ceeb lagu raadinayo kuwa qaarna si ay caan u noqdaan qof kale oo caan ah ayay farqa ku dhigaan oo iska laalaadiyaan kadibna waxaa la rabaa in qofkaasi lagu soo caanbaxo oo markaasi bulshadu ay qofkan kale qofka ku dhegan ay bartaan kuwa sidaasi ku soo caanbaxay ayaa hadda bulshada isaga dhigaya in ay yihiin dad iyagu horumar isgaarsiiyey bulshadana wanaag u sheega laakiin sidaasi maahan oo qof waliba taariikhdu way xusaysaa waana la yaqaanaa wuxuu ahaan jiray iyo waxa uu yahay waxa uu ku tooran yahay iyo waxa uu taro haddaba dhalinyarada youtuberada ah waxaa la gudboon inay dib isugu noqdaan waxay soo gudbinayaanna ay wax ka beddelaan majaalaad fara badan oo aad wax ka soo gudbin karta ayaa bannaan inaad bulshada wacyi geliso inaad dadka masaakiinta kaalmaysood wax u ururiso in aad waxbarasho ka hadasho oo aad mawduuca aad ku fiican tahay ummadda u faa'iidayso inaad ka hadasho sooyaalka iyo taariikhdii waddankaaga Soomaaliya in aad ka hadasho qaladaadka bulshada ka dhexdhaca iyo shubahaadka jira iyo sidii loo sixi lahaa inaad la kulanto culimada oo aad ka faa'iidaysato mawduucyada iyo taariikhda ay soo mareen in aad raadiso xalka dhibaatooyinka jira iyo sida loo heli karo waxaa jira wax badan oo aad wax ka bedeli karto laakiin inaad maanta dhan iscaysaan oo is-aflagaadaysaan horumar ku gaari maysaan ee sidaasi waxa laga bedelo haddaba walaalka muslimka ah ee daawada barnaamijyadaas kale ee soo saaraan dadku sida barankiyada maalmahan socdee lagu waashay ee lagu xeel dheeraaday ee kabadbadiska ah waa inaad qaybta commentiska ama faallooyinka ka waanisaa dadka waxyaabahaasi soo dhigaya waxaa laga yaabaa fariintaadu in ay gaarto kadibna ay saamayso oo qof ka joogsado wax xun uu samayn lahaa taasina aad uga hesho ajir iyo wanaag commentiska ama faallooyinkan waxaa loogu talagalay in wax laga sheego muuqaalka la daawaday ee maahan in lagu tuugsado sida ay sameynayaan dadka qaarkii oo aad arkayso maanta dhan subscribe iyo star like iyo star share iyo dhe halkan iga yacni waxaas waxba laguma helo wax la imow bulshada la hor imow markii bulshadu wax ay qanciyaan iyaga ayaa kugu soo beeraya oo noqonaya macaamiil adiga kugu xiran laakiin dad channel kasta ka hoos tuugsanayso leedahay like iyo star waxaasi waa sharaf darro wax qurux badan oo like lagu saaro soo qor laakiin in la tuugsada maanta subscribe in la tuugsada lacag kama duwana tuugsi waa tuugsi si kastoo yahay haddaba barankiyada ay Soomaalidu sameeyaan ha ka waantoobaan ayaamahan dambe bulshadana ha u soo gudbiyaan wax wanaagsan oo lagu intifaaci karo intaas ayaan ku soo gaabinaynaa barnaamijkeena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمر